لقوم عامين كرماش على سعانو مر والله يديلو حاجة شيء إلى مجاز لا سعانو إساق دي بيقول سببته قبلها إرجابك الصوب وقبلنا عليه أحمد waxay u soo carreen oo la sacaanadu u yimaadeen tolkood iyo wiilasha walaalahooda maanta tamaamulka helay iyagiiba kufsi iyo tacaddi kala kulmeen ergaab cisaaq la deganaa oo maamulka uu gacanta ku hayna waxbay ka baranayeen maalin laguma kufsan ninka rag arunta laga sheegay marka haddaan ahay oday hartiyo waxa ii muuqata dad ismaamuli kara inaysan dhulbaanta ahayn fuma wallahi hadda intaasoo nin haddii maanta la togto waxay u noqonaysaa Soomaaliya oo dhan 10 laakiin dadkii sameyn lahaa meeye waxaad arkaysaa iyagoo mag la kala qaadanayo xanuunka wiilka walaalihii la kufsaday ay dareemayaan intaan ma dareemayaan hooyadooda haddii la kufsan lahaa gabadha maanta waa hooyada berri wey gabadha maanta wiil baa berri way hooyo noqonaysaa markii la guursado waxa ayaan darra marka in meeshaas wax maamulo ka jirin haddii nimankaas imtixaan fariisteen qabiilna niyo isma maamuli karo oo haddana wada technique haysta oo haddana wada oday koofiyad baclayaal horboodayaan fama wala rajadii aan maamulka ka qabay anoo Yaaqub Siyaad waa iga sii dhimanaysa marka aragtid dadkaagu waxa ay sameynayaan oo wax ilhaana ah oo ceeb ku ah bulshada saas lagu leeyahay ilaa xalay Yaaqub waa fuusto dhulbaanta lagu soo riixay ha sheegi kuwa kale ay leeyihiin Yaaqub sheeg dhulbaanta dhiiqay galeen isla anaga marka gabdhahaasna xuquuqdooda loo raadiyaan firdhiye ka codsanaya oo waliba dil toogasha ah madaxweyne fuma wallahi kan Saciid Cabdullaahi Dini waagi la dooranayay oo hore uu fiicnaa intuusan waalan nin caadi ah gabadha caasha yar raggii kufsaday dil buu ku fuliyay ninkii gabar kufsaday anoo Yaaqub Siyaad agteeda waa dil in la dilo way ragaas afraata kaanin aduusan dhulbaanta layn fiiri maanta inta maxaabiista ma jarteen gabdhii daabka u fureeyay gabdha dhulbaanta bay ahaayeen laas ana tagay rasaasta iyo hubka dhulbaanta waxaan qirayaa maanta inuu gabdha leeyahay usarag lahayn fuma wallahi gabadha dhulbaanta dhiiga ku jira iyo ragga dhulbaanta dhiiga ku jira difference farq u dhaxeeya marka fiiriyay anigu maamulkaas wuxuu inta ku soo gaaray waa gabdhaha la kufsanayo gabdhihii dhigooda ah oo dhulbaanta wey oo cidka hadduu nicsaa kufsan lahaa maxaa ga biila hadduu nin reer kala kufsan lahaa maxaa ga biila ilma adeertood baa kufsaday kuway dahabka u furayeen kuwa markay dagaalka ku jireen kuway lahaayeen tolaaye wiilasha dhulbaantay meesha waxa loo xoreynayay inaa gabdhihiina ku wastaan maamulka su'aasha ku weydiiye qodobka halkaas kaga gudbaya firdhiyana waxaa leeyahay firdhiye mas'uuliyadda dadkan adaa qaaday gabdhaha mas'uuliyadooda adaa ilaahay kala xisaabtamay